dowladda Iiraan ayaa isku diyaarinaysa la wareegidda meydadkii ugu badnaa oo ciidanka dowladda Iiraan ka tirsan. Safaaradda dowladda Iiraan ee dalka Sri Lanka ayaa maanta oo Jimcaha waxay sheegtay in la bilaabay habraacii lagu soo celin lahaa meydadka 84 badmaaxiin Iiraaniyiin ah kuwaas oo ku dhintay weerar gantaalka torbeedo loo adeegsaday oo toddobaadkii hore lala eegtay markab dagaal oo ciidamada badda ee dowladda Iiraan ay lahaayeen. markabka dagaal ee dowladda Iiraan oo Dina lagu magacaabo waxa uu la kulmay weerar 4 bishan aan ku guda jirno xilli uu ka soo laabanayay dhoolatus military oo lagu qabtay dalka Hindiya. waxaana weerarkaani fuliyay ciidamada badda ee dowladda Mareykanka ciidankii ugu badnaa oo dowladda Iiraan ka tirsan ayaana ku dhintay. dhacdadan waxay timid iyadoo uu socdo dagaalkii Israa'iil iyo Iiraan u dhaxeeyay kaas oo saameyn ku yeeshay suuqyada caalamka isla markaana carqaladeeyay ganacsiga iyo safarka dhanka badda iyo hawada dunida meelo badan oo kamid ah. maxkamad ku taala dalka Sri Lanka ayaa toddobaadkan amar ku bixisay marka in meydadka badmaaxiinta ku geeriyooday dagaalkaasi in lagu hayo qolka meydadka ee cisbitaalka magaalada xeebta ah dhacda ee lagu magacaabo Gayla ama Galle isla markaana lagu wareejiyo safaaradda dowladda Iiraan. waa meydadkii ugu badnaa oo dowladda Iiraan ay la wareegayso tan iyo dagaalka markii uu bilowday. wasaaradaha caafimaadka, arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga ee dowladda Sri Lanka ayaanan ka jawaabin su'aalo la doonayo warbaahinta inay wax ka weydiiyaan arrinta badmaaxiintan inkastoo ciidamada Sri Lanka ay sheegeen inaysan ku lug lahayn hawsha meydadka lagu rarayo. wasaaradda gaashaandhigga ee Sri Lanka dhankeeda waxay sheegtay inay xiriir iyo wada hadal u dhaxeeya wasaaradda arrimaha dibadda iyo safaaradda dowladda Iiraan uu jiro si la isugu dubarido arrinta shaqaalaha markabka ama ciidamada dowladda Iiraan. laakiin arrintan ayaa waxay imaanaysaa iyadoo cadaadis caalami uu jiro. warbixino hore oo wakaaladda wararka ee Reuters ay baahisayna ay sheegayaan in Mareykanka uu cadaadis saarayo dowladda Colombo si loo carqaladeeyo soo celinta 32 badmaax oo la sheegay inay ka badbaadeen weerarka markabka. xiisadan ayaa marka Sri Lanka waxay gelisay xaalad siyaasadeed oo adag maadaama ay leedahay laba lamaane oo dhanka dhaqaalaha ah oo saaxiibna la tahay Mareykanka iyo sidoo kale Iiraan. Mareykanka wuxuu qaataa 40% dhoofinta ee dharka ee dalka Sri Lanka. Iiraanna waa suuq muhiim u ah mid ka mid ah dalalka ugu waaweyn ee iibsada shaaha dalka Sri Lanka. sidaa daraaddeed waxay doonaysaa labaduba inay isku hayaan oo Mareykanku wuxuu taagan yahay arrintan ma samayn karaysaan, Iiraanna waxay taagantaa bal waan u baahannahay meydadkan inoo soo wareejiya. waan arki doonaa qodobka waxyaabaha ka soo kordhay aan ku raaciyo. agaasimaha guud ee hay'adda atomikada dunida Rafael Grossi ayaa shaaca ka qaaday Jimcaha maanta inay hay'adda baadigoob ay ugu jirto sidii loo gaari lahaa heshiis cusub oo dhanka nuclearka oo u dhaxeeya Washington iyo Tehran. nuclearkan dartiis waa waxa dagaalka uu bilowday. hadda wuxuu leeyahay wadahadalla ayaa soconaya iyadoo dagaal dhinaca kale uu socdo. wadahadalladaas oo la doonayo heshiis cusub in lagu gaaro sida ay baahisay wakaaladda wararka ee taas oo dalka Ruushka ka soo baxda. Rafael Grossi marka wuxuu taagan yahay waa inaan heshiis cusub aan gaarna, heshiiskaas oo dib loogu bilaabi karayo wadahadalkii dheeraa ee barnaamijka nuclearka ee dowladda Iiraan. caqabado badan ayaa jira marka la eego wadahadalkan. toddobaadkii saddexaad waxaa galaya dagaalka adag hogaanka ugu sarreeya Israa'iil, Mareykanka iyo Iiraanna waxaad moodaa inay hanjabaado adag ay jeedinayaan. markii ugu horeysay dagaalkan ayaa waxa uu ahaa midkii ugu xooganaa oo dhexmara labada dhinac iyada oo dowladda Mareykanka iyo Israa'iil oo iskaashanaya ay 28 February ay duqeeyeen magaalada Tehran halkaas oo ay ku dileen hogaankii ugu sarreeyay dowladda Iiraan. waan arki doonaa waxyaabaha ka soo kordha waana kula wadaagaya insha Allah. like sar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada waad mahadsan tahay. dowladda Iiraan ayaa caawa waxaa gantaaladii ugu badnaa ilaa gelinkii dambeba ay ku weerartay magaalada Qudus iyo magaalooyin kale oo ka tirsan gudaha Israa'iil, halka Iiraanna dhankeeda ay la kulantay duqeyn aad u xoogan oo lagu garaacay magaalada Tehran oo caasimadda dalka Iiraan ah. maalintii 14aad dagaalka waa uu socdaa ilaa iminkana lama joojin, mana muuqanayso xal ugu yaraan dagaalka lagu soo gabagabayn karayo. Mareykanka ayaa soo diray mid ka mid ah maraakiibtiisa ugu weyn, Gerald Ford markabka lagu magacaabo waxa ku soo biiri doona markab kale sida la sheegay oo ay la socdaan ilaa 9 markab oo ilaalinaya markabkaas. dhaqaajinta markabkana waxay ku soo beegantay xilli dowladda Iiraan ay sheegtay inay waxyeello ay gaarsiiyeen markabkii Mareykanka uu lahaa ee USS Abraham Lincoln. wargeyska Wall Street Journal ayaa daabacay in wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ay go'aan ay ku gaartay in mid ka mid ah maraakiibta ugu weyn ciidamada badda ee Mareykanka loo soo diray gobolka. markabkaas oo ay ka dooli karayaan diyaaradaha dagaal ee ugu badan. tanina waxay noqon doontaa qorshe kale oo Mareykanka uu doonayo inuu ku sii xoojiyo dagaalka ka dhanka ah dowladda Iiraan. dhinaca kalena aan kula wadaago wararkii ugu dambeeyay. seeriga digniinta ayaa isqabsanaya qaybo badan oo ka mid ah Iiraan iyo sidoo kale Israa'iil. ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraanna waxay sheegeen inay caawa ay fuliyeen
mawjadii 45aad ee howlgalka ay ugu magacdareen ballanqaadka afraad. israa'iilna waxay duqeymo ay ka geysatay xaafado dhowr ah oo ka tirsan koonfurta dalka lubnaan sida xaafadda xaruuf, al-fawq, nabaatiya iyo sidoo kale al-sawaana. wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda maraykanka ciidamo kale oo dheeraad ayay usoo dirta bariga dhexe. 2 ruux ayaa geeriyooday, 5 kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii maraykanka iyo israa'iil ay duqeymo wada jir ah ay caawa ay ka fuliyeen xaafado ka mid ah magaalada tehraan. talyaanigana waxa uu beeniyey inay iiraan ay kala hadleen in maraakiibtooda loo ogolaado inay marinka hormus ay ka gudbaan. marinka hormus weli waa la isku arkayaa, dowlad kastaana waxay doonaysaa halkaasi in shidaalkeeda uu ka soo gudbo. welina waxaa baakin ku jira xuutiyiinta dalka yeman oo mar kasta loo ogolaan karaya dagaalka inay ku soo biiraan. ugu dambeyntii xisbullah ayaa sheegay 12 goobood inay bartilmaameydsadeen tan iyo jimcaha maanta, oo ay ka mid yihiin goobaha wax soo saarka shidaalka iyo sidoo kale saldhigyada militari ee ciidamada israa'iil. waxyaabaha ka soo kordha waan kula wadaagi doonaa. laakiin muuqaalka la wadaag saaxiibadaada, waad mahadsan tahay.